leeyahay hadal iyo dhamaanti hadalaan laga fiirsan iyo caanaan laga fuuqsan feeray wax ka yeelaan inaa ku furdoonte isakuurarin waxaan leenahay oo ka digaynaa war dalkan iyo dadkan dhibaato intay soo mareen baa ugu filan waxa lagu ciqaabayo musiibadu u haysataana ilaahay ma dulmin nafteena annaga dulminay kusoo dhawow xaqsoor TV iyo waliba barteena baraha YouTube xaqsoor TV iyo barteena baraha bulshada ee Facebook arrimaha qarsoon waxaanu ku leenahay nagu soo bir waxaanu ku soo gudbinaynaa muuqaalo argagax badan muuqaalo yaab badan fanaaneen caan ah oo Soomaaliyeed oo u kharashabay laba show oo habeenka ciida lagu qabanayo Muqdisho من الشارع محا خلدنا هنا وحكم أركين أبو معه وحن ليه هذا اللي دمانت هذا لان لقى فيرسن يا عانان لقى فوقسن فيري وحكاية لان إنه كفر دون يسكورر إنه كفر دون يا نكورر مرة ريا مركو هربا المهم هذا الكوميتري المهم هذا الكوميتري هذا ما يستري يا عرشة عرشة الله ينده بيننا قال لي إذا كنا حسنينا علينا إنكي وهوين هجان كفنكو وهنكا قهدا غير هبل غير هبل غير هبل يا إنكي وهوين هجان كفنكو هنكا قهدا فو غير هبل عادي هيدي أبان أدغنا horta xamar iyaga iskale cidi kama xigto أيه hadal ilmaan tudku wada joogan صح cidi kama xigto xamar عندي كام حكت cidi naga xigto xamar هذا الكوارتين هاي ووركي أو كوبن أو كومبو كجرا حمر ونك الله علينا حمر ونك الله فدي قاعد من هوس بس صدق باقرانك ويان باقرانك هوس بس صدق لا بس haddaba inta aynaan muuqaalkeena falanqayn waxaynu u gelaynaa barnaamijyo aad u badan oo dadku aad u hadalhayaan fanaaneen aad u fara badan ayaynu ognahay inay maanta ku sugan yihiin Muqdisho oo ugu yaraan ilaa 50 fanaan ayaa isaga kala yimi daafaha geeska Soomaalida iyo waliba meelo badan oo ka baxsan sidaynu ognahay fanaaneen badan oo ka hayaantay Hargeysa ayaynu ognahay inay ku sugan yihiin Muqdisho sababtay u tageen ay ahayd inay dadkooda Soomaaliyeed la soo farxaan maalinka ciidka iyo waliba iyagoo u ballan qaaday ilaa inta ay halkaa joogayaan ama ay ku nagaanayaan lama oga xilli ay ka iman doonaan qaarkood waxa ay sheegeen inaanay kaba soo noqoneen si kale haddii aan u dhigno dalkoodii ayay joogaan fanaaniintan Soomaaliyeed ee dadku si kale u falanqeeyeen horta run ahaantii fanaaniinta faraha badan ee ku sugan Muqdisho haddii aynu si sax ah u turshino ka waran 50 fanaan oo Soomaaliyeed oo meel isugu yimi show kaliya haddii ay wada qabtaan taas ayaa keentay in laba qaybood laga kala dhigo iyaga oo waliba isku raacsan oo aan midna mid aanu ku shidayn dadka qaarkood ayaa sheegaya in fanaaniintani ay is-cunsuriyeeyeen oo qaarkood looga saaray in ay kuwii hore ay la socdeen ay ka maarmi waayeen haddaba fanaaniintan ayaa qaarkood la sheegaya in la kala iibsaday fanaanka Ismaaciil Aarka oo ku biiray kooxda uu hogaaminayo Dayax Darnuush iyo Shaadi Sharaf oo ah kuwa ugu cadcad ee ruux doona habeenka ciida magaalada Muqdisho halka kuwa kalena uu hogaaminayo fanaanka magaalada Muqdisho Luholin la yahay ee Sharma Boy iyo waliba Masrax Mideeye haddaba fanaaniintan faraha badan ee Soomaaliyeed ayaa qaarkood looga digay baraha bulshada sida uu ku baahiyay muuqaal ku duubay bartiisa baraha bulshada Daahir Calasow waxa uu sheegay inaanu ka qayb gali doonin fanka Ismaaciil Aarku haddii uu ka qayb gali doonana ay wax ku dhici doonaan laba garanayo waxa dhici doona balse culimo badan oo Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho ayaa aad uga dhiidhiyay habeenka ciidka intaas oo fan oo magaalada Muqdisho ka dhici doona si kastaba ha ahaatee dadka Soomaaliyeed ayaa habeenka ciidka lagu madadaaleyn doona heeso iyo waliba waxyaabo kala badan oo ay soo bandhigi doonaan fanaaniinta aadka u faraha badan ee ku sugan magaalada Muqdisho sida uu baahiyay Dayax Darnuush isaga ayaa hogaamiye ka ah oo waliba gacan weyn ka geystay sidii uu isugu soo ururin lahaa fanaaniinta ugu cadcad Muqdisho haddaba muuqaal uu duubay Cabdidhaanta oo barihiisa bulshada ku baahiyay ayaa isagu waxa uu sheegay inay Nashaad iyo Axmed Aashe ay haystaan Sharma Boy oo ah qofka kaliya ee magaalada Muqdisho habeenka kala xidha markasta oo uu shoogana aad ay u jecel yihiin bulshadiisa Soomaaliyeed
horta run ahaantii waa wax aad loola yaabo in fanaaniin Soomaaliyeed laga dhex shaqeeyo sidaynu ognahay baraha bulshada waxaa la wareejinayaa in la leeyahay fanaaniintii Hargeysa laga keenay ayaa meel cidla ah la diray oo dad badan aan la siin oo sidii xaq ahaa aan loo kala qaybin sida ay ku soo daabaceen baraha bulshada dad badan oo Soomaaliyeed ayna ka dherigsan yihiin horta run ahaantii fanka Soomaalidu maaha mid lagu ciyaaro fankuna waxa weeye madadaalaha koobaad ee dadka Soomaaliyeed oo dhan u ah waxtar aad u weyn markaynu leenahay fanku maaha waxtaruma laha fanaaniintan aad arkaysaa waxay wax ku yihiin dadka Soomaaliyeed ayay wax ku yihiin haddii aynu si kale u dhigno fanaaniinta caalamka marka ay show qabsanayaan iska daa inay magaalo kaliya ka soo qayb gasho showgoodaasi waxa ka soo qayb gala dalka uu ka midka yahay fanaankaasi oo dhan isla markaa waxaa la dareemaa inuu ruxay oo weliba loo gogolay meelo fara badan oo dad badanina isugu yimaadeen haddaba fanaanka caanka ah ee Sharma Boy ayaa ballan ku qaaday inuu meel saari doono fanaaniinta uu ficilku kala dhaxeeyo ee labada show kala shabsaday ee lagu qabanayo habeenka magaalada Muqdisho ka dhici doonta dadku waxay aamini laayihiin inuu Sharma Boy isu keeni doono ugu yaraan dad aad u fara badan oo qanciya Nashaad iyo Ismaaciil Aarka sideen ognahay Muqdisho dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool oo weliba dhalinyaro u badan boqolkiiba 70 dhalinyaradaasi waxay aad u xiiseeyaan fanka Soomaaliyeed waxayna soo kiciyeen oo ay soo saareen fanaanka Sharma Boy dhalintii soo saartay ayay ka mid ahaayeen halka uu isku qiimo yahay labadan show ee ka dhacaya isla habeenka magaalada Muqdisho balse fanaaniin mucjisa ah ayaa ku jira showga uu hogaaminayo Ismaaciil Aarku ma ogtahay dadyawgeennii hore marka ay showyada qabsanayaan iska daa 50 oo 100 fanaan inay meel masraxa isugu iman jirtay oo halkaa la isugu kala bedeli jiray wixii ay helaana ay qaybsan jireen halka maanta fanka Soomaaliyeed aad loo siyaasadeynayo oo aad arkayso in fanaanka Axmed Aasha uu leeyahay ka daaya fanka siyaasadda oo haqabyaaladeenina dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan way isku dhiig wayna isku dun mana aha in la kala qaado run ahaantii haddaan nahay Xaqsoor TV waan ka xunnahay in fanka Soomaaliyeed la siyaasadeeyo annaga oo weliba leh labada show ee ka kala dhacaya Muqdisho ilaahay mid nabad qaba ha ku dhameeyo haddaba waxaan ku leenahay walaalkayow nagu soo biir oo rikumo barta ayna ku leenahay Xaqsoor TV ee YouTube iyo weliba barteena baraha bulshada ee Facebook haddaba wayna sugi doonaa labada show ee ka kala dhici doona magaalada Muqdisho inkasta oo culimo awdiin aad u fara badan ay ka qeyliyeen haddana si kastaba ha ahaatee waxaan rashaynaynaa labada show ee Muqdisho ka kala dhacaya ee heerka caalami lagu tilmaamay inay noqon doonaan mid khayr ku soo dhamaada